kani waa mid ka mid ah musuqmaasuqii karkaarka weydaartay ee madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud iyo xulafadiisa dam jadiid ay kula kaceen hantidii qaranka. goobtani waa agagaarka aadan cabdulla cismaan aadan cadde garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho. waa musuq maragma doonto ah qof waliba ee maanta booqdana uu arki kara dhismaha dhaadheer ee ku teedsan garoonka aadan cabdulla cismaan aadan cadde. 29 bishii sagaalaad sanadii 2013 xeerkii tirsigiisu ahaa 117 xeerkaasoo qeexay in la burburiyo agagaarka dhismaha ku teedsan garoonka aadan cabdulla cismaan aadan cadde kadib markii shacabkii laga burburiyay halkaas degnay, kadib markii xeerkii madaxweynada ay hirgashay, kadib markii goobtii laga dhigay goob bannaan. dabadeed maxaa dhacay? miyaa loogu danaya hantidii? kani waa liiska raggii musuqmaasuqay sidii loo kala qaybsaday. liiska hortiina ka muuqda waxaa kaalinta koobaad kaga jiro cabdiraxmaan axmed cali oo la siiyey 40 lagu dhiftay 100 oo 3 mar soo noqdo liiska ugu jira kaalinta koobaad, labaad iyo saddexaad. waxaa kaalinta afaraad ku jiro madaxweynaha walaalkiis cali sheekh maxamuud oo asagana la siiyey 40 lagu dhiftay 70 100 boos la siiyey ee degmada Waaberi. waxaa kaalinta shanaad soo galaya marwada madaxweynaha Sahra Cumar Xasan oo ah marwadii madaxweynaha oo ayadana la siiyey 6 boos oo cabirkiisu yahay 40 lagu dhiftay 45. tani waa fariin cad ee muujinaysa musuqmaasuqii dalka hareeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xilfadiisa ay ku wada kaceen. waa fariin maragma doonta qof walba maanta tag booqata garoonka aadan cabdulla cismaan aadan cadde ay ku soo arki karto. waxaa liiska ka mid ah cabdullaahi goodax barre oo asigana la siiyey 2 boos cabirkiisuna yahay 20 lagu dhiftay 30 kuna yeela degmada Waaberi. warqadani waa warqadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhulka uu ku sharciyeystay kadib burburintii hantidii shacabka. midaana waa midii milkiilayaashii hore ay ku degnaayeen halkaas. waa ka rogo laba saar. waxaa qayb libaax la ka qaatay musuqmaasuqii cabdikariin xuseen guuleed oo ahaa wasiirkii amniga dowladda xasan sheekh maxamuud, kaasoo iscasilay 24 bishii shanaad sanadii 2014. iscasilaadiina ay moodeen shacabkii inuu kaga jawaabayo fashil kaga imaaday dhanka amniga maadaama uu gudan waayay xilkii loo igmaday. balse iscasilaadiisu waxaa ku hoos duugnay qorshe ay muddo dheer soo maleegayeen ururkii dam jadiid oo xasan sheekh maxamuud horkacayay, kaasoo ugu bedelay xilkiisii waxyaabo kale oo ka farxiyey. goobta idin muuqato waa agagaarka caymiska. waa dhulkii lagu wareejiyay cabdikariin sheekh xuseen guuleed, dhulkaasoo hadda lagu magacaabo galmudug yaray. waana dhulkii cabdikariin xuseen guuleed sida sharci darrada loogu wareejiyay oo qaybtana ka ahay dugsigii tababarka ee goola tikniik. waxaa sidoo kale cabdikariin xuseen guuleed wax laga weydiinayaa keedkii shidaalka ee haamadhowr ee degmada xamar jajab iyo xaruntii fiishabaar oo ayadana loogula wareejiyay qaab sharci darro ah ilaa haddana uu ku ganacsado welina aanan wax liskaga weydiin. waa musuqmaasuqii karkaarka weydaartay aan qofuna ka dahsooneen, qof weliba tagtana maanta ay arki karto. sidoo kale xarumaha kaalmaha shidaalka ee laga dhisay lambar 4 iyo 4 darajeen ayaa qayb ka ah musuqmaasuqii baasanaa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dalka u geystay dhaci iyo boobkii hantida qaranka oo aanan weli wax liska weydiin. musuqmaasuqii karkaarka weydaartay waxaa qayb lixaad la ka qaatay cabdullaahi maxamed nuur. waa xildhibaan aad wada garanaysaan, 30 milyan haysto. waa milkiilaha dhismooyinka dhaadheer ee ku teedsan xeebta Liido, hoteelada lagu caweeyo, baararka laga cunteeyo iyo guryo waaweyn iyo baarkina baabuur. waa milkiilaha Fitch Hotel. waa hantidii qaranka laga soo bixiyay qasnadeeda canshuuraadkii laga aruuriyay dadweynahoo la maareyn kari waayo ee la musuqmaasuqay ninba maal daaru ka dhistay. waa arrin aanan lagula xisaabtamin oo weli la isweydiin. waa dhici iyo boobkii ay dadweynaha u geysteen ururkii gobolkooda leecay xasan sheekh maxamuud hogaamiyaha u ahaa ee dam jadiid. waxaana wada arkaysaan waa dhismooyinkiisi, waa kuwa qabya iyo kuwa dhammaystiran iyo kuwa hadda lasii qorsheynayaba. sahal cabduqaadir abwaan jookar musuq diid.